gaarsiinayno halkan waxaan aad uga salaamayaa mar haddii hal doorka reerka la salaamo waxay la mid tahay uun in reerkii la wada salaamay oo dhan marka jamalka waa soo socda waa sax weeye waaye halkan waxaa fadhiya generaal axmed maxamed xasan oo loo aqoonsan yahay sawaaxili jamalka soo dhawoobaan leedahay sidoo kale waxaynu reerka magaciisa ku soo dhaweynaynaa cabdiraxmaan cadami oo ah maayarkii somaliland wax badan ka qabtay sidoo kale gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha muddo soo maamulayay iminkana ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee somaliland cabdiraxmaan cadami waa soo dhaweynaynaa sidoo kale waxaynu soo dhaweynaynaa jaamac cali cilmi agaasimihii ugu muddada dheeraa bankiga dhexe ee somaliland sidoo kale waxaa xafladda fadhiya oo aynu xogaa sugeynay suldaanka reerka suldaan axmed maxamed suldaan cabdiraxmaan suldaan diiriye waaye reerka kale halkan kale waxaan kasoo dhaweynayaa aqoon-yahano badan siyaasiyiin waxa weeyaan waxaan ugu horreysiinayaa xildhibaanka reerka suldaan caydaruus cabdisamed waxaa fadhiya ganacsato waxaa fadhiya suldaankii reerka suldaan axmed daahir sidoo kale waxaa fadhiya xuseen macalin nin aanu aad saaxiib u ahayn mar horena isku kaydambeysay oo halkaa ka arkayo khaalid xaaji aadan jaylaani aad u salaamaya khaalid waqtigoo kooban iyo dadkoo aad u tiro badan waxaan kusoo dhaweynayaa bahda dhaqanka waxaan kusoo dhaweyn doonaa suldaanka reerka suldaan axmed daahir موسى علمي أو وحوي يعني هوشي نقل على إن شاء الله سلطان سلو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم والله يربك هريلا بمحله السلام يا تحية الإسلام تحية الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دس برنا يقول السوشيال شيء منه لبضن سصور فديا لبضن كويسنا وحوي وحضارتي سوماليلاند أما سومالي بروح الليلة ودقن يدين يوحد بوداعي أنا جنده كلك ميل والبلسرو dhiiggaasaa ka soo baxaya socodkuna intan dambe waxay noqotay nin walba inuu inaadintii dhinaca u gooyo guurkii aynu arki jirnay ayaa soo noqday walaalkay cabdilaahi waxaan leeyahay waad mahadsan tahay inantaa qaaliga doctor sahiba inaad maanta noo intay inanu kaa doonno inta badan aynu fadhinayna kolley waa intii hargeysee waynu iska dulqaadanaynaa insha allah billahi alkariim walaalayaal taariikhda sidaa loo sheegay waa 7-kii bishii Jumaada al-Aakhir 1447 hijriya ummadda islaamka waxay ku abtirsanaynaa taariikhda rasuulkii calayhi salaatu wasalaam uu noo jideeyey ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu islaamnimadii uu noo dooray dambigeenna uu dhaafo iyo kii walaalaheenba wanaaggeena soo damidna abjirtiisa na siiyo waddankeenana barwaaqo bashbashaaru siiyo abaarahana ilaahay naga joojiyo dadka dhibaato hayso ee maanta isku muuqdana ilaahay waxaan nooga rajaynaynaa inuu ilaahay buugooga burcad isku mariyo waynu u ducaynaynaa in walaaltinimada iyo salaamnimada la qiro amnigii ammaanka inu wax ku nahay taasaynu ku qurux badan nahay taas waad mahadsantihiin dhammaantiin tan iyo danta guud kolkan u noqdo waxaan ku qabsanayaa inankan abtiga iyo kol abtiga aan u hay سلطان محمد سلطان أحمد سلطان عبد الرحمن سلطان ديريه والله ولا أبتي وحندورنا إن دنوه بيسان أنت الليرة دكتور عيسى هيو عبد الله عبدي وبهذا صاحب النهاية ولا النهاية ونودون إنه عبد الرحيم برك ليل إن كان كافرديا أو كدين مقدم إن النسيسان يوم الإنسان looguna ducaysaan barakadana sidaan ugu qaadano waanad mahadsantihiin waxaan kusoo warjinaya suldaanka khayr allah siiyo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين madaxda dhaqanka siyaasiyiinta culimooyinka ganacsatada waayeelka iyo waxgaradka kale ee dhammaan qaybihii bulshada reer somaliland ka kooban ee maanta isugu yimi xafladan aynu ku yeegleeyno Dr. Sahibo iyo Cabdiraxiim meherkoodii oo ka dhacay magaalada Hargeysa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tirada dadku aad bay u badan tahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad qof waliba milkihiisa iyo maamuuskiisa iyo magaciisa iyo martabadiisa aan dadku wada tirin karin ee ku salaamaya dhammaantiinba suldaan abti waa sidaad sheegtay ummaddu waa dhaliidhasheed reer isaabaynu nahay abti iyo ab iyo ehel iyo qaraabo axmed sheekh isxaaq iyo awaalumada waa iska xigaan weliba dee xaggan inta ka soo jeedee inantu ka dhalatay أول مرة قارنك كل قيد وذاك مقارنة خصوصي إسماعيل جبريل قوم كسعد موسى يوردوا خصوصي يا شاي مرة كل واحد يروح يدي أقول تدي أو عيد ولا ده أفكي شيء يوروبا ما أنا تبي اللي يقرن يعني شيء أحمد شيخ سعد سعد يسوبر بقى لو قرنا بقرطي سوتشين كهاي يود الشركي يوال على ماذي يوح صعاشي مرة كلا ينتظر على رشة سلطان هو كسرة تيجي تحوش اللي بدرو يكون شفتها أنا هذا يكون هذا قيمة هذه مصلحة بس تملكها هي ماموسك هي شرفك هي قيمها له بيروي تدرج على أي ما تنقول صار أطاع قالتي مرة هذه مصلحة بني وكم هذا اللي يلا حالة لا وضع ومرك كواد إن تقولي كذا الشرع قال له يديستو شروط داسوسو بيصيروا ديتيل نفرتين وهذه كم هذا علمي وطلب هذا ملكه هي ماموسك هي رقم كي وما تصوم عليه إن خيارك إسبرتو وأصحاب هي هالدور قبل الشهر الله يسوق كانوا دقة كي نقص على إسرائيل وقيت بريسيا تأثير إلى سوق بسيط ترى وين كم هالدليل هي إذا أنا كعاب وقعدت أقوله أنت يا وش على وقت كم بتاعي إن أنت الله يرضى دكتور إسحاق يبو عبد الله عبد موسى أو دكتور إسحاق عبد الرحيم مرة خليل وايد السيناي هكذا ما كنت رأينا دعادي مرة عني تداركين توري وقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كبركيو وأنت بالسعودية وحوي ماتا كل كراتيا شيء ليرو غير كانوا بيجي على أولي وصاحبك هلكا وكسوجيدو أحمد محمد سواحلي يرجع هلكا عبد الرحمن يكمل عبد الله يرجع بدر الجوغان وحنا هاي آل يدور مدين وحاي قدونا أرتا لكن كي مكوم باي wax badan baa inaga qaldamay inaynu wax toosinana inaga iyo waliba dhaqanka iyo dadka maanta hal doorka ayay u baahan tahay boqortooyadan axmed sheekh saxaab fac weyn bay lahayd taariikh bay lahayd waajibkeedii lama marin baan odhan karaa kolka dee la isdhexriixay haddana maanta ay taagan tahay kolka laga jafjafo aniga suldaanku waxaanu ku heshiinay inaanu berdib u baarbaarno oonu taariikhdii rixrixino waxaanu soo wadnaa boqorkii reer sheekh saxaab إلى هاي جرتي وبنينا الكريم كش شيء يتوقع لنقول على مسار إنه هنجيسا قدون كاسينا وانو قدون هل كان قلا يرعى قطر وتنا ما شيءنا الهنجري يوحي لو رجل نوح براي تعيد هاينا قصدي غير نجنيها كاسينا وحواتي الجبر فريق اللي بتجي وليبا دمنا الدور المهنة بروح لنا أبتيار شيء وما شاء يلا بيملان الكا واحد بجرا 20 مليون oo ragga sharaftiisa halkana $2,000 oo yarad madaxiyan ku haya xaragadii odayguna waa taa waxaan ku wareejinayaa kolka hadii ilaahay ila gudoonka iyo sheekhayga sheekh daahir Allah nahayd barakeeyo waan ku salaamayaa أنتي لو ما تسنتي سوى نفسك وبيجي يشرب في معموس لما يرتي لو رمعتي إن أنكرا ودعيسي كاين الدكتورة وري أحمد نوحة وبي اتش دي حيرة دعو yahay waxda dhaqanka aad u wanaagsan yihiin waxaan ku wareejin doonaa mikrofoonka waxa weeye sheekh iyo ku wareejin بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد guud ahaan
dadka sharafta leh ay isugu yimid xafladan qof walba teetalkiisa iyo masabkiisa ayaan ku salaamaynaa oo koobi karno hawro karaa labada reer ba guud ahaanba cayaantii Soomaaliland waa ku dhataay dhammaanteen Allah ina barakeeyo waxaan geli doonaa insha Allah xafladda iyo ujeedadii loo qabtay iyo gabagabadeedii hal qodob baa ku daraya suldaanku wuxuu ammaanay dictoraysta fiibo Allah barakeeyo ana waxaan ku aqaanaa Cabdiraxiim Barre oo aan aabihii dee aabanimada u mooyaane aan uga aqoon badanahay Allah barakeeyo waxaa ka muuqata laba ilaahay isu dooray inay yihiin Allah isku barakeeyo Cabdillaahina waxaan leeyahay inantuu waxay ku keentay in aad ku farxi doonto ilaahay idinkii intaa markaan ka gudubno insha Allah Cabdillaahi Cabdi Muuse wuxuu xil saaray in aan u guuriyo inantiisa hibadeedu igu soo wareejiyey inanku waa Cabdiraxiim Barre Maxamed kaliya waa naanayse odayaashii deegaanka iyo dhaqanka ee madaxda deegaanka la yaqaanay oo ahaa Allah u naxariisto inantu waa dictorayso hiba Cabdillaahi Cabdi Allah isu barakeeyo kalgacaylka iyo maxabada isku doorteen Allah u daa'imiyo oo dalka iyo dadka iyo diinta waa Allah ka beero inta markaan u guubno meherka waxa la ii sheegay labada dhinacba 200 oo gram oo raqamka dhexa ilaahay dadkii xawayaan waa deyn culus Allah ka bixiyo waa deyn culus diraxay waxa leeyahay waa deyn lagu leeyahay sadeynta ugu dilahaydna waa waajib saaraway marxaatiyada dhammaanteen wada marxaati baynu nahay Suldaan Axmed Daahir suldaanka reerka Suldaan waxa ku jira Maxamuud Jirde Xuseen iyo Suldaan Maxamed Axmed Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Diiriye intaas warqada ku qoranay dhammaanteen wada marxaati baynu nahay waayahay waxaynu wada geli doonaa cad iyo shuruudaha waa inoo dhanyihiin guurku weligii waa joogaa inankiina waa joogaa inantiina waa joogtaa markhaatidii waa joogaa meherkii waa laga heshiyey dhinaca shuruudda shareecada islaamkana way noo dhan tahay Cabdiraxiim Barre waxaan kuu guuriyey hibo dictorayso hibo Cabdillaahi Cabdi Muuse oo meherkeedu yahay 200 oo gram ayaan kuu guuriyay aabaheen Cabdillaahi oo jooga iyo wakiishay بارك الله لكم وبارك عليكم الله بركيه راس بركيه ووضع لنا وضع الشيء سكتيجان كاتب عليه محبوب زوجيدا إلهي سبحانه وتعالى كنيجو قوة بركة وضلك يدك يدي توافعك الله أقوى ساقه ساق بركة يرث بركة حلال الله وسياديو القعاي كاي محبوب سكتور تنا الله دائميو إنتهي ودلوليه لواني ماي لبك المدور بان قدر دونا ودردارا كلمة كوباد وحوي إلهي كعبصد قف ولوبا قبري باب السوقية دوية هاي مسؤول يهديها هاي مسؤول لقية هاي مدح يا مدح رقمين سراكيل يا سلاطين يا دليرة كمان تين قف ولوبا إلهي كعبصد وحاط كل حساب تتايوم من الأيام إن أد إلهي هرتدي دوتو قبل لو نجي دوره وحكويا لويها عمل كاجي الدنيا لا سميسي أو كوبرا قولا وفعلا واعتقادا تسوى تاوي قلبك كلا وحويا وحينا الدردار الدردار ولا نبت قليلا سي سلطان عبد السلطان والشيخ أحمد داهر وحين كنا والله هاي كدقني شرف كلنا هاي إنه والله يتعرف سنة تاريخ ذهبت كبير ورثك كجرنا ولا بتقليلا انتنا وين وقرنا حالتها نصبرنا فوضى نصبرنا بربركينا ودعي نبتقلي حمد وحي لهاي وين وقرنا تا إنه كفر ذا علينا ولا له إنما تا عبسدو كتيرتنا أنا دعينا إلهي وحن كرجينا إلهي يقول يا نبتقلي هيك كعائلة درس الوضع هاي إلهي يقرأ السعودية اللي يردنا وحن لهاي الله يذ بركاته ذلك إذا كان